madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenada ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed iyo wafdiga la socda xubnaha golaha baarlamaanka dhammaan marti sharafta kale iyo qaybaha howlwadeennada ay halka jooga dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته waxaa sharaf weyn inaan hortiina imaado si rasmi ahna aan u furo kalfadhiga 74aad ee baarlamaanka Puntland iyadoo sidoo kale aan idinla wadaagayo warbixin taabanaysa waxqabadka xukuumadda intii u dhaxaysay labada kalfadhi waxaan sidoo kale golaha warbixin ka siin doonaa arrimaha siyaasadda guud ee Soomaaliya ee xilliga kala guurka mudana gudoomiye mudanayaal intii labada kalfadhi u dhaxaysay waxaan safar shaqo ku soo maray magaalooyinka Gaalkacyo Galdogob Xero Jaalle Bursaalax Saaxo Dar es Salaam iyo Cagaaran oo ka mid ah gobolka Mudug ujeedooyinka ugu muhiimsan ee safaradaasi waxay ahayd dardargelinta howlgallada amniga lagu sugaayo kormeeridda shaqooyinka hay'adda dawladda ka wadaan deegaanadaas iyo in aan wax ka ogaano nolosha shacabka deegaanadaas waxaana kaloo waxna looga qabto baahiyahooda aasaasiga ah intii safarka aan ku jirnay aniga iyo wafdigii ila socday waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaas aan maraynay dadka waxay bogaadiyeen shaqada hay'adaha dawladdu ka wadaan deegaanadaas baahiyihii ay soo jeediyeen waxaan farnay hay'adaha ay khusaysay inay si degdeg ah uga jawaabaan qaybo ka mid ahna wax laga qabtay inta dhimanna waxaan ku darnay qorshayaasha dhow ee dawladda sidoo kale intii aan joognay magaalada Gaalkacyo waxaan shirar iskaashi dhinacyo badan taabanaya la yeelanay dawladda Galmudug iskaashigaasi waxa uu xoojinayaa ka hortagga argagixisada colaadaha beelaha la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dembiyada kale ee xuduudaha ka dhaca waxaan sidoo kale ku guulaysanay iyada oo la iskaashanayo in la furo wadooyinkii xirnaa dib u dhisna lagu sameeyo si ay u fududaato isku socodka bulshada labada dhinac mudanayaal iyo marwooyin iyadoo lagu jiro dhammaadka muddaxileedka madaxda dawladda federaalka waxaa lagama maarmaan noqotay in wada tashi laga yeesho sidii waddanka doorasho uga dhici lahayd si nabad ah bishii Juulaay waxaan ka qayb galay shir madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb wajigii koowaad kaasoo lagu go'aamiyay in wada tashi laga ballaariyo in wada tashiga la ballaariyo isla markaasna shirka wajigiisa labaad lagu qabto magaalada Dhuusamareeb kaasoo ay ku kulmeen madaxda dawladda federaalka ah iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah ee dawladda federaalka shirkaas waxaa la isla qaatay in doorashadu ay dhacdo waqtigeeda lagana gaaro heshiis siyaasadeed sida doorashadu u dhacayso
taasoo loo ballamay 15 Agost 2020 wejigaa saddexaad la isugu yimaado isla magaalada Dhuusamareeb. waxaa kale oo madaxdu isugu timid magaalada Muqdisho si loo dhammaystiro wadaxaajoodyadii Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3. shirkan waxaa laga soo saaray heshiis siyaasadeed oo ka kooban 15 qodob oo mabaadi'da guud oo lagu hagaayo doorashada 2020-2021 ayna ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah 26 bishii 9 2020. ansixintii heshiiska siyaasadeed kadib madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay kulamo ka yeesheen hirgelinta heshiiska iyagoo aan soo wada saarnay habraacyo lagu faahfaahinayo qodobada heshiiska laguna caddaynayo in la dhiso 3 guddi oo isku dhaf ah oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay soo wada magacaabayaan si ay u hirgeliyaan doorashada 2020-2021. waxaa kaloo habraacyada ka mid ah astaynta kuraasta gobolada, shuruudaha musharaxiinta, ergooyinka iyo jadwalka doorashada oo waqtiyeysan. intii aan magaalada Muqdisho joogay waxaan kulamo la yeeshay qaybo ka mid ah saamilayda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ah, siyaasiyiin kale iyo xubnaha dowladda Puntland ku matala golayaasha dowladda federaalka ah kulamadaas oo qayb ka ahaa in wada tashi laga yeesho xaaladda siyaasadeed iyo sidii waddanka doorasho uga dhici lahayd. waxaa xusid mudan in muddada aan Muqdisho ku sugnaa anigii wafdigii la socday aan kulamo kala duwan la yeelannay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay, safiirka waddanka Mareykanka, UK, EU, AU, Italy, Sweden iyo kuwo kale oo dhammaantood ka wada hadalnay horumarka ay Puntland ka samaysay dhinacyada hirgelinta nidaamka axsaabta badan, dib u habaynta ciidanka, maaraynta maaliyadda iyo dowrka shariifka ah ee Puntland ay ka qaadatay in waddanku ay ka dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku dhacda. mudanayaal iyo marwooyin, intii u dhaxaysay labada waji ee shirkii Muqdisho waxaan safar booqasho gaaban ah ku tegay caasimadda ku meel gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed ee Baydhabo, halkaas oo aan kulamo iskaashi ah ku yeelannay madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo ay naga dhaxayso xiriir bulsho, ganacsi iyo mid siyaasadeed. waxaan ku heshiinay in aan sii xoojinno iskaashiga, isna weydaarsano khibradaha dhismaha hay'adaha dawliga ah. waxaa dhowaan imaanaya Puntland wafdi ka socda 5 wasaaradood oo ay aqoon isweydaarsi iyo kala xog qaadasho ay yeelan doonaan wasaaradaha dhigooda ee Puntland. waxaa sidoo kale wafdiyo isweydaarsaday baarlamaanka labada maamul si kor loogu qaado iskaashiga baarlamaanka ee labada maamul. waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, gudoomiyaha baarlamaanka, golayaasha dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhaweyntii diiraneed ay noo sameeyeen aniga iyo wafdigayga. mudanayaal iyo marwooyin, si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga aynu la leenahay dowladda Jabuuti waxaan safar shaqo ku tagay dalka Jabuuti intii u dhaxaysay labada kal fadhi. intii aan waddankaas joogay waxaan kulamo la yeeshay madaxweynaha Jabuuti iyo madax kale kuwaas oo aan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsi ee inaga dhaxeeya isla markaasna shirkadahoodu u maalgashan lahaayeen Puntland. waxaan halkaan idingula wadaagayaa waxqabadka xukuumadda u qabsoomay muddadii u dhaxaysay bilihii Juun ilaa Oktoobar, kuwaas oo aan u kala saarnay 4 qaybood ee mudnaanta howlaha shaqo ee dowladda, kuwaas oo kala ah arrimaha amniga, arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta; 2 arrimaha horumarinta dhaqaalaha; 3 arrimaha horumarinta arrimaha bulshada; iyo arrimaha tayeynta adeegyada iyo horumarinta kaabayaasha. qaybahan oo waxqabadkoodu ka kooban yihiin adeegyo kala duwan oo ay bixiyaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xusid mudan in aafada coronavirus saameyn weyn ku yeelatay howlaha dowladda muddadii u dhaxaysay labada kal fadhi. waxaa yaraaday
isu socodkii dadka waxaa hoos u dhac ballaaran ku yimid dakhligii dowladda waxaa hoos loo dhigay isu imaatigii shaqaalaha dowladda arrimahaas oo dhammaantood saamayn ku yeeshay dhammaan howlihii shaqo ee qorshaysnaa iyadoo ay sidaas tahay haddana waxaan guud mar ku samaynayaa howlihii shaqo ee qabsoomay qaybaha amniga iyo arrimaha gudaha waxaa guulo la taaban karo laga gaaray hannaanka geedi socodka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan taasoo wejigii koowaad lagu soo gebagabeeyey muddadii u dhexaysay labada kalfadhi waxaa si rasmi ah loo aqoonsaday 10 urur siyaasadeed oo buuxiyey dhammaan shuruudihii laga doonayey waxaa hadda loo gudbayaa wejiga labaad ee geedi socodka dimuqraadiyiinta Puntland oo ah in doorasho qof iyo cod ah lagu soo doorto golayaasha deegaanka ee dhammaan degmooyinka Puntland iyadoo ay ururada siyaasaddu ay u tartami doonaan loogana gudbi doona hannaankii hore ee waxqaybsiga beelaha waxaa intii labada kalfadhi u dhexaysay wasaaradda arrimaha gudaha ku guulaysatay dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Galdogob iyo Raka Raaxo ee gobolada Mudug iyo Karkaar waxaa dib u heshiisiin bulsho laga sameeyay degmooyinka Galdogob Carmo Qardho Saaxdheer Bursaalax heshiisiintaas ayaa dowladda Puntland qayb weyn ka ahayd isla markaana dhinacyada khilaafku ka dhaxeeyay ayaa heshiis rasmi ah lagu soo gabagabeeyay waxaa sidoo kale socda wacyigelin bulsho oo ku aadan hubka dhigista iyo dhaqan celinta kuwaasoo qayb weyn ka ah ka hortagga khilaafaadka iyo iska hor imaadyada bulshada waxaa weli socda jawaabista dhibaatooyinkii ay geysatay daadadkii Qardho ku waxyeeleeyay bulshada reer Qardho naf iyo maalba iyadoo dowladda Puntland oo kaashanaysa shacabka reer Puntland iyo kan Soomaaliyeed waxay dadaal weyn gelisay sidii ay uga gargaari lahaayeen dadkii ay ku waxyeeloobeen daadadkaas guddi isugu jira dowladda iyo xubnaha door bulshada reer Puntland ayaa waxay juhdi badan ku bixiyeen inay arrintaas ka jawaabaan waxayna gaareen guulo wax ku ool ah waxayna ururiyeen dhaqaale badan tan iyo intii ay shaqo bilaabeen guddiyadaas hawshaas loo xirsaaray dhammaan kaalmooyinka ayaa ah kuwo loogu jawaabayo dhibaatooyinka isugu jira mid burbur hanti shakhsiyeed iyo burbur soo gaaray kaabayaasha waxaa sidoo kale socda qorshaha magaalada loogu maareynayo biyaha ka soo rogmada buuraha iyo togoga iyadoo aan rajaynayno in dhowaan uu bilaaban doono fulinta qorshahaas si aysan mar dambe magaalada ugu soo fatahmin daadad muddada badan ku soo laalaabanayay waxaa si fiican u socda barnaamijka maamul daadejinta ee ka socda 9 degmo oo Puntland ka tirsan kuwaasoo adeegyada aasaasiga ah ay si toos ah ula wareegi doonaan maamulka degmooyinkaas sida waxbarashada hoose dhexe iyo adeegyada caafimaadka aasaasiga barnaamijkan oo haddii wejigiisa koowaad lagu guulaysto loo soo gudbi doono degmooyinka kale ee Puntland si waafaqsan qorshaha tayeynta ciidamada booliiska waxaa dufcadii ugu horeysay ee ciidanka booliiska Puntland tababar loogu soo xiray xirada Xorgoble ee magaalada Qardho dhammaan ciidankaas waxaa si dhammaystiran loogu diiwaangeliyay hannaanka casriga ee biometriga ah isla markaasna mushaharooyinkoodii loo laba jibaaray kuwaasoo sidoo kale agabkii ay ku shaqayn lahaayeen loo diyaariyey sida gaadiid iyo waxyaabaha kale u baahan yihiin waxaa kale oo qaybna ay dhammaadeen qaybna hadda la bilaabay dhismaha 9 saldhig oo waaweyn oo laga hirgelinayo degmooyinka Gaalkacyo Garowe Qardho Boosaaso Baran Saaxo Galdogob iyo Tawfiiq dadaaladan ayaa qayb ka ah tayeynta adeegyada amniga ee xarumaha booliiska bixiyaan waxaa sii socon doona tayeynta ciidanka iyadoo la siin doono tababaro dheeri ah oo xirfadooda sare loogu qaadi doono laamaha amniga ee Puntland ayaa waxay hoos u dhigeen falal dambiyeedyadii ay geysan jireen argagixisada iyada oo la soo afjaray shabakado isku xiran oo dhagarqabayaashu diyaarinayeen si loo waxyeelayo shacabka Puntland sidoo kale howlgallo ballaaran oo lagu beegsanayo goobaha ay ku dhuumaaleystaan argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo xubno muhiim u ahaa shabakadahaas qaybtood lagu dilay iska hor imaadyo dhexmaray argagixisada iyo ciidanka Puntland halkaas sidoo kale laga soo
furtay hub iyo saanad ciidan oo badan. ciidamada amniga ee Puntland ayaa ka howlgala dembiyada ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn iyadoo guulo la taaban karo ka gaaray la dagaalanka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa. waxaa xusid mudan dadaalada ay dawladdu gelisay la dagaalanka mukhaadaraadka sida khamriga iyo xashiishadda, isla markaana waxaa haatan dib u eegis lagu wadaa xeerka daroogada iyo khamriga. mudanayaal iyo marwooyin, si loo tayeeyo hannaanka xisaabaadka ee hay'adaha dawladda Puntland waxaa la sameeyey siyaasad lagu midaynayo khasnadda dawladda Treasury Single Accounts, taas oo ay dhammaan xisaabaadka hay'adaha dawladda Puntland ku midoobi doonaan. dadaalkan ayaa qayb ka ah tayeynta hannaanka maaraynta maaliyadda iyo xisaabaadka dawladda Puntland. waxaa sidoo kale dhinac socda dadaalo lagu horumarinayo adeegyada bangiga dhexe ee dawladda Puntland, taasoo hadda laga gaaray guulo wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin dhismaha bangiga dhexe oo gabagaba ah, gabagaba maraya hannaanka maaraynta xisaabaadka bangiga dhexe iyo laamihiisa oo loo bedelay qaab casri oo digital ah. abuuridda siyaasadaha iyo habraacyada aasaasiga ee bangigu ku howlgalaan, tayeynta xirfadda shaqaalaha iyo dhismayaal cusub. waxaa sidoo kale la horumarinayaa iskaashiga bangiga iyo wasaaradda maaliyadda si loo helo hannaan maaliyadeed oo casri ah, daahfuran, la isku hallayn karo. si loo dardargeliyo howlaha kastamka tuurdibi iyo iskaashiga ganacsi ee aan la leenahay Itoobiya, waxaa is-afgarad kala gaarnay dawladda Itoobiya noocyada badeecooyinka iyo wax soo saarka labada dhinac isdhaafsan karaan, taas oo wax badan ka tari doonta ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee labada dhinac. waxaa siyaaday dhoofka xoolaha naga aada dalalka Imaaraadka, Kuwait, Cumaan, Yemen iyo Bahrain. intii u dhaxaysay bilaha Juun iyo Sebtembar 2020 waxaa dhoofay xoolo isugu jira geel, lo, ari, tiradoodu ay dhan tahay 756,926. iyadoo la tayeynayo daryeelka caafimaadka xoolaha, waxaan dirnay 4 kooxood oo ka jawaabayay xaaladda caafimaad oo si gaar ah geela u saameeyay, taasoo degmooyinka Buurtinle, Xarfo, Gaalkacyo, Bursaalax, Galdogob, Garoowe, Godob Jiiraan, Buuhoodle iyo Koonfurta Laascaanood loo diray, isla markaasna ay ku soo guulaysteen fidinta daryeel caafimaad xoolaha degdeg ah, tiro dhan 15,258 neef oo geel ah. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa guul ku soo dhammaaday imtixaankii shahaadada ahaa ee fasalka 8aad iyo 12aad oo ay fariisteen isugeyn tiro arday ah oo dhan 16,000, kuwaas oo ku galay imtixaanka 132 goobood oo deegaanka Puntland ah. waxaa maamulayay, kormeerayay, isla markaasna ilaalinayay imtixaanka Puntland shaqaale gaaraya 825. ardada fariisatay imtixaanka fasalka 12aad ee shahaadiga ah isla markaana gudubtay waxay dhan yihiin 4,821 oo u dhiganta 97.77%, halka ardayda dhacday ay yihiin 59 arday oo u dhiganta 1.19%. waxaa fariisan imtixaanka ardada tiradoodu gaaraysa 11 arday. tani waxay xaqiijinaysaa tayada waxbarashada oo ay bixiso dawladda Puntland, waxaana naga go'an inaan sii tayeyno heerka tacliinta Puntland. waxaa si habsami leh u furmay waxbarashada sanadsiyeedka 2020-2021 dhammaan deegaanada Puntland, kuwaasoo habraacyada ka hortagga cudurka COVID-19 lagu wacyigeliyay ardada. waxaa socda dhismaha 7 dugsi iyo dayactirka 18 dugsi oo kale. waxaa sidoo kale dhismayaal lagu kordhiyay 9 dugsi oo kale, iyadoo ay dawladdu sii wadi doonto dadaalada ay ugu jirto in ay siyaadiso kaabayaasha waxbarashada. waxaa 50 kursi oo deeq waxbarasho ah oo heerka 2aad ah master degree ka helnay dawladda aan dariska nahay ee Itoobiya, kuwaas oo loo qaybiyay shaqaalaha cisbitaalada, jaamacadaha iyo shaqaalaha dawladda. si looga hortago loona xakameeyo faafidda cudurka COVID-19, waxaa Puntland laga furay 3 shaybaar oo cusub marka laga tagay kii hore ee Garowe ka furnaa, oo loogu talagalay adeega baaridda cudurka COVID-19. waxayna kala yihiin magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo iyo Baran. waxaa sidoo kale qorshaysan in magaalada Buuhoodle laga furo xarunta 5aad.
ee lagaga heli karo adeegga baarista cudurka COVID-19 dhammaan xarumahaas waxaa ka howlgala shaqaale si fiican loo diyaariyey bixinta adeegyada caafimaadka isla markaasna intii u dhaxaysay labada kalfadhi waxaa 390 howlwadeennada caafimaadka lagu tababaray ka hortagga daaweynta wacyigelinta iyo maaraynta karantiilka ee cudurka COVID-19 waxaa la qabtay sahamo isdaba joog ah oo loogu koorgalayo saamaynta ayaxa iyo goobaha uu ku sugan yahay guud ahaan gobollada Puntland dowladda Puntland waxay si buuxda uga howl gashay la dagaalanka ayaxa iyadoo adeegsanaysa shaqaale si gaar ah loogu carbiyey kuna gaashaaman qalabka loogu buufiyo ayaxa diyaarado korka ka buufinaya iyo gaadiid lagu rakibay qalab lagu buufinayo ayaxa waxaa sidoo kale dhinac socday dadaallo lagu qiimeynayo 15 degmo deegaanadaas oo lagu qiimeeyey saamaynta uu ku yeeshay ayaxu wax soo saarka dalagga beeraha iyo daaqa iyadoo laga duulayo horumarinta adeegga biyaha ayaa waxaa si rasmi ah loo hirgeliyey qodidda 6 ceel biyood oo dhaadheer kuwaasoo laga qoday qaybo ka mid ah deegaanada Puntland waxaa dayactir dhammaystiran lagu sameeyey 13 ceel biyood oo ku kala yaala goobo kala duwan iyadoo sidoo kale la qoday 2 warood biyood oo loogu talagalay in looga faa'iideysto kaydinta biyaha xilli roobaadka mudanayaal iyo marwooyin waxaa la dhammaystiray nidaamka dib u habaynta iyo casriyeynta mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dawladda taas oo sahli doonta dib u eegista mushaharaadka shaqaalaha rayidka ah iyadoo loo eegayo qof kasta darajadiisa iyo mas'uuliyadda uu hayo sahanka wadada Jalam Xarfo oo soo dhamaaday haddana lagu guda jiro naqshadaynta dhismaha wadada muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi waxaa si guul ah ku soo dhamaaday dayactirka 9 kiiloomitir iyo 6 buundo oo u dhaxaysa wadada kala bayr iyo yalho ee gobolka bari waxaa guulo laga gaaray dhismaha wadada Ceel Daahir Ceerigaab iyadoo 20 kiiloomitir loo diyaariyay in la saaro laami waxaa si rasmi ah dib u bilowday adeegga duulimaadyada dalka iyo dibadda labada garoon ee Puntland kadib markii muddo u xanibnaayeen saamaynta COVID-19 muddadii labada kalfay u dhaxaysay waxaa adeegyada duulimaadyada ku soo siyaaday 7 duulimaad oo caalami ah oo u kala duuli doona wadamada Kenya Imaaraadka Djibouti iyo Oman kuwaas oo ka kala duuli doonaan garoomada Boosaaso Garow iyo Gaalkacyo adeegyadan cusub ayaa isugu jira kuwa xamuul ah iyo kuwa rakaab ah waxayna si joogto ah uga duuli doonaan garoomadaas dhismaha dekedda Garacad oo ah mashruuca ugu weyn oo isku tashi lagu dhisay ayaa haatan maraya meel aad u wanaagsan iyadoo dhererka dhismaha hadda marayo 510 mitir oo badda gudaha loo galay halka ballacu yahay 90 mitir waxaa sidoo kale la dhisay jambi dhererkiisu dhan yahay 75 mitir oo u qaybsan halka ay doonyaha ama maraakiibtu ku soo xiran doonaan waxaa la siyaadiyey baaxadda wax soo dejinta dekedda Boosaaso iyadoo awal ay soo degi kartay 1500 oo tan maalintii hadda waxaa la gaarsiiyey 2250 oo tan sidoo kale waxaan bilownay khad container oo bishii hal mar imaanaya dekedda Boosaaso taasoo ay qayb ka tahay tayeynta adeegyada dekedda iyo kobaca dhaqaalaha waxaa kaloo socda wada hadal iyo wada xaajood ku saabsan xal u helidda shirkadda DP World taas oo dawladda Puntland 2017 ay ku wareejisay heshiis si rasmi ah u gashay dawladdeeda ka horeysay baarlamaanka xilliga jirana uu ansixiyay waxaan rajaynaynaa dhaliilaha ka jira DP World in ay xukuumaddu ay si dhow ula socotay muddada 2 sano ah dadaal badan ay ka gashay qoraallo badan ay ka diyaarisay iyadoo la kaashanaysa la taliyaasheeda dhinaca sharciga iyo dhinaca maamulka ah waxaa xogo badan ka ururinay habka suuragalka ah ee arrintaas xal midaysan oo waara oo aanan saameyn ku yeelan xiriirka dawladda Puntland iyo Imaaraad inaan ka gaarno iyadoo ku kooban shirkadaas DP World ama B&O ee dekedda Boosaaso haysa waxaan rajaynaynaa muddooyinka kooban in ay xal waara laga gaari doono iyadoo xalkaas uu dibadhiciisu sabab u yahay COVID-19 iyo socodkii caalamka ka dhacay oo suuragal ka dhigi waayay in si rasmi ah oo foolka foola loo wada hadlo waxaan aad ugu rajo weynahay arrintaasi
waan ogahay bulshada reer Puntland inuu culays badan ku hayo waxaan ku kalsoonaataan xukuumaddiina iyadoo ilaalinaysa habka nidaamka dawliga ah heshiisyada caalamiga ah sida loo galo iyo xuquuqda dadka reer Puntlandba inaysan ahayn arrin ay dhayalsatay xukuumaddu il dhowna ay ku hayso anoo og baarlamaanka inta badan walaaca ka soo gaara bulshada haddana waxaan u sheegayaa inay ku kalsoonaadaan maamulkooda iyo dawladdooda inay arrintaas ay tahay arrinta isha dakhliga ugu weyn ee dawladda Puntland ku aasaasan tahay iyo nolosha dadka Puntland annagoo og arrimahaas ayaan haddana waxaan ku tala jirnaa inta xalka laga gaarayo inaan capacity-ga dekadda kor u qaadno ka tayayno sidaa hadda arkayseen habka maamulka oo la hagaajiyey waxaa la kordhiyey tirada ama tanka maalintii la dejin doono waxaan hadda lagu gada jirayaa in la hagaajiyo meelaha xoolaha ka dhoofaan iyo in loo diyaar garoobo konteenarada meelaha lagu kaydin doono iyada oo xalka sida hadda ay tahay ah mustaqbalkana loo diyaar garoobi doono in la helo dekad casri ah oo ku filan baahida dadka Puntland dhammaanteed mudanayaalay marwooyin intii gabagabada intii lagu guda jiray labada kal fadhi xukuumaddeedu waxa ay ansixisay xeerar isugu jira kuwa cusub iyo kuwa hore u jiray oo dib u eegis lagu sameeyay kuwaas ay ka mid yihiin xeerarka isgaarsiinta xeerka ilaalinta afka Soomaaliga xeerka maareynta dhulka magaalooyinka xeerka golayaasha deegaanka iyo siyaasadaha mideynta khasnada dawladda Puntland dhammaan xeerarkan waxay qayb ka ahaayeen qorshayaashii dawladda u degsanaa in ay meel mariso kuwaas oo qayb ka ah tayeynta adeegyada dawladda waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu guda jiro kalfadhiga 47 waxaan rabaa inaan aad u xuso dabcan waxa aan ka sheekaynayna waa labada kalfadhi inta u dhaxaysa laakiin waxaa jira mashaariic fara badan oo dalka ka socota oo aan horay u sheegnay oo ku celcelintoodu aysan aan u arag inay muhiim tahay oo dalka muhiimad weyn u leh waxaa socda ballaarinta korontada ee Boosaaso waxaa socda biyihii waxaa socda mashaariic aad u fara badan garoomadii cayaaraha waxaa socda barnaamijyo aad u fara badan oo dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada oo ah mashaariic muddo socotay siina socon doonto waxa aan ka hadlaynaa hadda waxa weeye waa labada kal fadhi intii u dhaxaysay mashaariicdii qabsoontay oo aan horay u jirin ayay qorsheenu ku saabsan sida aan horay idin kula wadaagay saamaynta COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan heerka dhaqaalaha Puntland gaar ahaan dakhliga dawladda mashaariicda caalamiga ah lacagaha xawaaladaha iyo isu socodka ganacsiga gudaha iyo dibadda waa mid caqabad ku noqday hirgelinta dhammaan barnaamijyada dawladda Puntland u qorshaysnaa sanadkii 2020 iyadoo ay jiraan caqabadahaas dhaqaale ee aan kor ku soo xusnay haddana waxaa inoo qabsoomay inta badan qorshayaashii iyo yoolashii inoo degsanaa waxaana ka gaarnay guulo lagu faani karo sidaas oo kale in kastoo uu jiro hoos u dhac ballaaran oo ku yimid dakhliga dawladda haddana waxaa ahmiyad siinay bixinta mushaharooyinka oo dhammaan aan bixinnay si joogto ah mushaharooyinka ciidamada iyo shaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah iyadoo hoos u dhacaas dhacay uu yimid inta badan waxaan ku dadaalnay inaan kabno wixii aan markaa haynana aan deyn u qaadanno si aysan u kala go'in habsami socodka shaqada dawladda waxaan rajaynayaa in kal fadhigan uu noqdo mid guulo badan laga gaaro arrimaha masiiriga ah ee idin hor yaalla oo ay ka mid yihiin doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah inagu mateli doona waxaan hadda si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 47 ee golaha baarlamaanka dawladda Puntland وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته